عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه صحابي إن دولاها النبي عليه الصلاة والسلام مؤذن كساها أي النبي ويمد عليه الصلاة والسلام دنا وحور يا رسول الله سقو أويا يا أيو نبي ويمدي ما إن لعنت ما أنت أدونك أنا جايجو هاي ستا أي حدنا إن لعنت بآخرتنا يقدم بيسا إلا ظاهر كآيات وصدا سيشيء جيسا ومن كان في هذه أعمى قفك أدونك دوش يدكو إن لا إن بالك إن لعنت آخرك وحللي دون تايا كوين بإلى حيدي بركاسو صحابي أم لينا يا sida daahirka aayadu ay sheegayso maanu adduunka dusheedana indhoola oo waxba aan arkaynin miyay aakhirana indhala'aan kale ii dambaysaa nabi allow laana iyaka qur'aanka ayaa taabanayay qur'aanka ayaa noloshooda bedelayay qur'aanka ayaa noloshooda saameynayay laqad afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha quluubta إنك قلوبتنا ما تقفل أيا كجبن وحنا الدنيا أين مشغولية أكتر إنك جوحيا أيا فهمك القرآن كي نجاح يا مانت آخر هذا أرجعين فهمك آخر هذا نوحي نجهر تاجن زينة الدنيا أي مانت إفك الله صار بين نجهر تاجن إياك القرآن كأوتابنا يا آيات القرآن بركة سود دكتور آيات داس النروش وضوح بيك بدليسي markaa buu nebigu sal allahu alay wasalam ku yidhi may indhala-aantu tan maaha buu ka yidhi waata qalbiga buu ka yidhi camal qalbi oo qofka indhaha qalbigu hadday ka xidhmaan weeyaan qofka aakhirana indhala-aanta badani ay haleeli doonto haabit binu qays saxaabi la odhan jiray ayuu nebigu masaajidkiisii uu ka tabay markaa buu nebigu yidhi maa facala haabit war haabit maxaa helay war haabit maxaa helay markaasaa nebiga lagu yidhi yaa rasuulallah 3 maalmoodba ninkaasna lama tukano musallihii maaragtana reerkiisa u dhawaabuu ku tukadaa saxaabada rasuulkuna radiyallahu canhum cahdigii nebiga waxay ku xidhnaayeen masaajidka nebiga laana masaajidka nebiga sal alla alay slam qur'aanka ayaa nebiga waxiga ku soo degayay maalin walba warka samada ka imanayayba saxaabadu inay dhegaystaan ba u imanayeen laana dad samada ku xidhan baa haayeen iyaku inaku dad dhulka ku xidhan baa nahay maanta dhulka waxa ka soo baxa ayaa dadka zamankan maanta ay ku fooraraan ayakuna indhoogu kor bay u jeedeenoo warka samada ka imanaya bay mar walba la socdeen ee dhegaysanayeen markaan maalintii saxaabigu hadduu hal salaad masjidka nebiga ka maqnaado 2 salaadood uu ku soo tukan jiray masaajidka nebigeenna siduu u maqlo waxyiga nebiga ku soo degaya aakhirada ka warramaya ee khalqiga abuurka adduunyada ka warramaya ee maaragtaane cirkiga dhulka abuurkooda ka warramaya ee ummadihii naga horreeyena ka warramaya فيه نبأ ما قبلكم والخبر ما بعدكم النبي يقول القرآن كني وحلي وحي أدوية هرتين دعاء ودنا وكورما يا وحصوص عدنا القرآن وكورما يا أبو رسول كويدي والحكم ما بينكم إنك دحذي لنا حدان نقطان حكم باهتان قابكات أكل بحلا حيدين قفل بو حقي سكوها للهانا قرآن كايا إني عضين يبا إلى هاي القرآن كوحو قاحيا أبوه إنك حق أكل هاي علمهنا أبها حق أكل هاي jaarku jaarka kale xaqa uu ku leeyahay madaxdu shacabka xaq ay ku leeyihiin shucuubtana madaxdooda xaqa ay ku leedahay xaaska xaaskiisu xaqa uu ku leeyahay darisku dariskiisa xaqa uu ku leeyahay qaraabadooda xaq ay ku leedahay xukun weeyaan qof walba xaqiisii buu qur-aanku caddaynaya man qaala bihi sadaqa baa nebigu yidhi qofka yidhahda ilaahay baa sidaa yidhi run buu sheegay waman عمل به أجر قفك قرآنك كو عمل فلينا والله أبال مرياب النبي يقول أجر بك هلا قرآنك ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم قفك دتك قرآنك أقوي يدير هذا والقرآنك هنقبصنه والقرآنك هنبرنه وردينتنا هنصر نقنه والمساجد إنجلية كان طريق مستقيم كو دعا النبي يقول ومن حكم به عدل قفك قرآن أمد كل أمد كو حكمنا وعدالة فليب النبي يقول عليه الصلاة والسلام marka waxiga samada ka imanaya ayaa saxaabada rasuulka radiyallahu anhum haweenkooda ayaa ku xidhnaa dhalinyaradooda ayaa ku xidhnayd raggooda ayaa ku xidhnaa dadna markaasuu nebigu sallallahu alayhi wasallam thaabit bin qays buu nebigu tabo wuxuu leeyahay war ninkii thaabit ahaa maxaa helay maalmahan masaajidka kumaan arkine markaasaa isla markiiba nebigu wuxuu diray ziyaaro u diray nebigu sallallahu alayhi wasallam inaku maanta jaarku jaarka kale kama warhayo
ولكن صحابة رسولك رضوان الله عليهم أجمعين waxay ahaayeen dad iska warhaya bay ahaayeen ka buka waa la ogaanayay ka masaajidka nebiga ka maqana markaaba waa la ogaanayay waa loo yeedhay markaa saxaabigii nebigaa ku doonayaa lagu yidhi isagoo ooyaya ayuu markaa nebiga u yimid sal alla alay wasalam markaabuu nebigu ku yidhi maxaa kugu dhacay saddex maalmoodoo isku xigta haabitow maxaad masaajidkayga u imi weyda balii sheeg wuxuu yidhi saddex aayadoodoo qur-aanka ku taalla ayaa maalmahan adiga dushaada ku soo degtay saddexdaasiba nebi allow anigoon bay ga warbixinayaan buu yidhi qur'aanka siday u fahamsanaayeen ba la soco markaa buu nebigu ku yidhi waa saddexdee in allaha laa yuxibu kula mukhtaalin fakhuur addoon kasta oo faan badan oo xarago badan ilaahay ma jeclaa la yidhiyo aniguna nin xarago badan baan aho faanka jecel baan ahay buu yidhi ilaahayna ima jeclo aayaddaasaa caddaynaysa aayadda labaad waxa weeyaan laa tarfacuu aswaatakum fowqa sawti الnabiy walaa tajharuu lahu bilqowli ka jahri bacdikum libacd an taxbata acmaalukum wa antum laa tashcuruun markaad nebi maxamed la joogtaan calayhi الsalaatu wassalaam ee nebiga xalaqaadkiisa aad fadhidaan hadalladiina hadalka nebiga kor ha uga qaadina baa la yidhi aniguna nin qaylo badan baan aho qayladeedu way dheer tahay aayaddaasina xagga dambe waxay ku sheegaysaa kuwa nebi maxamed iyo ku ag jooga hadalkooga nebiga hadalkiisa kor uga qaadaya in camalkii saalixa ay qabteen uu ka gubtuu ka buray ayay sheegaysaa deedna qur-aankaasi wuxuu caddaynayaa in aniga maaragtaane uu camalkayga iga buray aayadda saddexaadna wuxuu yidhi wayuxibuuna an yuxmaduu bima lam yafcaluu falaa taxsabannahum bimafaazatin min alcadaab ilaa aakhiri alaaya waxaa la yidhi waxay jecel yihiin mar walba in lagu ammaano waxaynan iyaku aynan samaynin aniguna nin ammaanta jecel baan ahay saddexdaa aayadoodoo dushaada ku soo degay saddexduba anay iga warbixinayaan buu yidhi markaa buu nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi lasta miman yafcalu daalika buu ka yidhi yaa haabit adigu sidaa ma tihid buu ka yidhi saddexdan aayadood dadka ay ka warbixinayaan adigu kuma jirtid bal taciishu xamiidan wa tuqtalu shahiidan wa yudkhiluka allahu aljanna buu nebigu ku yidhi sal alla alay slam taciishu xamiidan waxaad noolaan doontaa adoo ilaahay ku jecel yahay oo nebigiisuna ku jecel yahay oo muuminiintuna ay ku wada jecel yihiin ayaad ku dhex noolaan doontaa adduunyadan wa tuqtalu shahiidan gacan gaalna waad ku dhiman doontaayo shahiid baad noqon doontaa shahiid wayudkhiluka allaahu aljanna ilaahayna jalla wacalaa jannaduu ku gelin doonaa buu nebigu ka yidhi marka qur'aanka ayay iyaku fahmayeen wuxuu ka hadlayo inakana de qur'aanka allah ina fahamsiiye de waman kaana fii haadihi acmaa fahuwa fi اlaakhirati acmaa waadalu sabiila waa indhoole weeyaan indhoole mu'adinkii nebigeenna calayh salaatu wasalaam aayadda daahirkayga intuu soo qaatuu nebiga ula yimid uu leeyahay aayaddan anigoon ba iga warramaysaayo waa aniga nebi allow sidaanaan ahay markaa buu nebigu uhi may indhola'aanta loo jeeday buu nebigu uhi waa indhaha qalbiga xaqiiqada meesha laga fahmaana waa qalbiga xaqiiqada meesha laga arkaana waa qalbiga qur'aankuna aayad kitaabka qur-aanka ku taalla fii suurati alambiya waxay sheegaysaa caqliga iyo quluubtu inay mid keliya ay yihiin lahum quluubun laa yacqiluuna biha baa ilaahay yidhi dadka gaalada ee maanta adduunyada dusheeda inagula nool markuu ilaahay ka warbixinayay wuxuu yidhi quluub way leeyihiin laakiin waxba kuma qabtaan baa ilaahay yidhi waxba kuma xidhaan qalbigooda marka noloshan adduunyada yare gaaban ee ilaahay nagu deeqay walaalayaal waxaan ku hagaajinaynaa waa diin aakhirada weyniga badanle waxaan ku hagaajinaynaa waa